Asalaamu calaykum. Muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa dhacdo amaba aragti cajiib ah taas badan filmaanta ku daawano balse nolosha waaqiciga ah amaba nolosha caadiga ah ay aaminsan yihiin dad badan amaba diimo badan. Aragtidan oo odhanaysa inay ruuxda qof dhintay ay ku wareegayso qof kale adduunka jooga. magacaygu waa cabdimajiid waxaan kusoo gudbiyaa kanaalkan dhacdooyin xaqiiqa iyo waadic faa'iido leh. fadlan haddaad nagu cusub tahay kanaalka kusoo biro subscribe-ta taabo lana wadaag asxaabtaada adduunka cajibay muuqaalkani mahadsan. aynu guda galno muuqaalkeena maanta. ku saabsanida arrinkan amaba aragtidan dhigaysa inay ruuxdan qofka dhimatay ku wareegayso shakhsi amaba qof kale waa la xidhaalay ilaa maanta xalintiisu ka adkaatay dadka ku nool adduunka korkiisa. waxaana uu noqday arrinkani inay cid kastaaba dhan ula kacdo fasiridiisa ama fasiraadiisa. waxaana jira diimo badanba oo iyagu aaminsanba jiritaanka arrinkan in ay ruuxda qofka dhimatay ay gelayso amaba u gudbayso qofka kale ee adduunka dhex jooga. qofkan ay ku wareegtay ruuxda ee adduunka jooga waxa uu si waafi ah cod u kala dhigdhigayaa noloshaas qofka kale ee uu ku andacoonay inay ruuxdiisii ku jirto. waxaase la yaab iyo ama kaga abuuray inay ku dhacday arrinkan laba qof amaba ay ku dhacdayba arrinkani laba qof oo laba wadan kala jooga iyagoon is arag abidkoodba. intaas kadib waxaa jirtay qisooyin amaba dhacdooyin aada u tiro badan oo ku saabsan arrinkan oo laga rikoodh gareeyay amaba la keediyey hadday noqoto bugaag laga qoray amaba fiidooyo ay kaga sheekeynayeen dadka ay ku dhacdayba laftirkooda. aragtiyooyinkan amaba dhacdooyinkani waxaynu muuqaalkan kugula wadaagi doonaa dhowr qiso amaba dhacdo oo ku saabsan arrinkan ah ruux qof dhimatay inay ku wareegtay qof kale. aynu bilaawno muuqaalkeenan. dhacdada ugu horreysa waxayna odhanaysaa waxaa jirta gabadh amaba inan yar oo lagu magacaabo barbaro carlin. waxayna gabadhani maalmaha ka mid ah la wadaagtay waalidiinteed inay noolayd waa hore ama waqti hore loona yaqaanay magac kale oo ka duwan magaceeda maanta ay sidato ee ah barbaro carlin. magacaas oo ahaa Anne Frank. waxayna u sheegtay gabadhan yar waalidiinteed inay deganeed xilligaas magaalada Amsterdam ee dalka Holland. waxaase la yaab ku noqotay in aysan gabadhoodan yari aanay abidkeed tegin magaaladan oo ay waalidiintii dhashay dhanta ay sheegtay inay deganeyd nolosheedii hore. gabadhan amaba inantan ay dhaleen si kastaba ha ahaatee waxay bilaabeen oy go-aan ku qaateen soo hubinta bal waxaan inantan ay dhaleen ay u sheegtay ay tageen waalidiinteeda iyadoo ay hogaaminayso ay horqabataynayso inantoodii barbaro carlin meeshii ay u tilmaantay. balse markii ay tageenba meeshii amaba gurigii ay sheegaysay inay ku noolayd nolosheedii hore barbaro waxay ku aragtay wax ka gadisan gurigii ay sheegtay. waxayna ku aragtay meeshii gurigu ahaa in loo bedelayba madxaf lagu ururiyo aasaartii hore ee ay lahaan jirtay magaaladan Amsterdam ee dalkaas Holland. intaas kadib waxay u gudagaleen waalidiintii barbaro bal inay ka xog wareystaan dadkii shaqaalaha ka ahaa awalkii hore meeshan ama madxafkan sidii uu xaalkeedu ahaa. waxaana ay u sheegeen dadkii shaqaalaha ka ahaa madxafkani in ay meeshani madxafka ka hor ahaan jirtay guri ay deganeyd gabadh waa hore ama waqti hore deganeyd. gabadhan magaceedu ahaa Anne Frank laakiinse ay dhimatay waqti fog oo aanay soo dhowaan dhimashadeedu. waxaanay sii xoojisay jiritaanka aragtida dhacdada amaba qisada gabadhani. aynu gudagalnayna qisada amaba dhacdada labaad ee ku saabsan arrinkan. waxay ka dhacday qisadan amaba dhacdadan mid ka mid ah dalalka carabta gaar ahaan dalka Suuriya. waxayna ku dhacday qisadan wiil yar oo da'diisu ahayd xilligaas ama waagaa 3 sannadood. wuxuuna wiilkan yar ahaa mid maalin kasta u sheegi jiray inuu noolaa nolol hore waalidiintiisa amaba xaafidiisa oo dhan laguna yeedhi jiray magac kale oo ka duwankiisa maanta. balse uu la kulmay maalin maalmaha ka mid ahayd dil loo geystay oo la dilay. intaas kadib waxay waalidiintii wiilkan yari u dulqaadan kari waayeen waxaan uu ka sheekaynay wiilkoodan yari. waxayna go-aan ku qaateen bal inay soo hubiyaan arrinkan wiilkooda amaba inankooda yar. waxayna u kaceen oo u dhaqaaqeen meeshii uu tilmaamay wiilkooda yari ee ugu sheegi jiray inay ku aaseen markii ay dileen nimankani amaba uu ku noolaa noloshiisii hore. waxaana uu ku sheegay inay raggaasi u adeegsadeen dalkiisa faas amaba faashidaad taqaanidba oo ay madaxa kaga dhufteen. waxaase la yaab badnaa in uu wiilkan yari madaxiisa amaba fooda kaga taallay calaamadaas cas meesha ay kaga taallay oo uu ku tilmaamay markii hore inay faas kaga dhufteen noloshiisii hore dadkani amaba raggii. haddii la qodayna meeshii uu wiilkan yari u tilmaamay inuu ku aasna noloshiisii hore amaba lagu aasay waxaa laga helay markii la qoday lafo qof oo uu berberyaala faasiga uu tilmaamay wiilkan yar in lagu dilay noloshiisii hore. haddii ay dadkiisii sii dabagaleena waxay soo ogaadeen in ay lafahan yihiin nin lagu magacaabi jiray Eylilash oo ku noolaa agagaarka meel aan ka fogeyn halkan lagu aasay. waxaana ninkan la la'aa oo la raadinayay muddo dhan 4 sano. haddii ay sii warwareysteen dadka amaba eheladii ninka dhintay ciddii ka dambeysay dalkiisii wiilka yar haddii weydiiyeen waxa uu tilmaamay wiilka yar inuu yahay nin magaalada jooga. haddii se loo tagayna ninkii
lana weydiiyey sababta uu dilay ninka waxa uu bilaabay qameermeero oo uu dafuro dilkiisa uu dilay balse markii la dulgeeyay meeshii amaba goobtii uu ku aasay ninkan uu dilay ugu dambeyntii waa uu qirtay inuu ku dhaaqay dilkii ninkan balse waxa la yaab noqotay sida uu ku keeni karo oo uu uga sheekayn karo ilmahan yari dhacdadan baad suuraysa daawaday deegaanka amaba goobtaas ku nooshahay imise jeer amaba noloshaada intaad nooleed ma ku aragtay dhacdada noocan oo ah anigu kolley ma adag intaan noolaa amaba intaan jiray muuqaalkana maanta intaas ku eegyahay intaan ku kulmano muuqaalka xiga waxaa kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.